السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جودهان أمة الإسلام كامل كرستون نقل السعودان وشاشة عالمي سمني يستي في حرنتي سمقالة هرقيس وحمان دمتيوا برنامج كفنكي السوغان تأبوان أشرف صومال ورنتي ما انتدين صوبان لقدونا ما سوين إيا قبايا كلا دوان وحانا يدين سوى تشيدين سانيقو بشارع عبد الجامع لتشنو وحان الله يهي كلان هبون داو ضيال كسو دو أبوان والله لو عندي واحد بشارة أدبد محسن تحي هذه هي دمان محا هيدي شقالها سميوس أدبو مهدسن يهي أبوان أشرف وما أنت محادو هايسا بالشداء محاد وقلت لك الشيء ما سوين كأب هايسو أدقو خضبا محا هيدين نغسو قادنا يا محا كميدا محايسا سامين تودو تحي ما أنت بالشديد الصومالية دي داونيسا وحانا هيا دور مانسو oo aan soo xolay dhowr ka maanso oo qayb kala duwan ka hadlaya qaybaha kala duwan kulay maasooyinka markaan dhex galo uun bay dadku duganayaan saan filayo marka bulshada waxaan wada dhowr maanso oo aan soo xolay oo islaahay waa kuwii ugu wanaagsan aad baad ma hadsantahay waashir goorma ayay kugu dhalatay curinta maxay ahaydeen fanku ama murtidu mahiba aad leedihiin oo ilaa iyo ka maxay ahaydeen family ba mise waa mid adiga ku gaar rabbi ku siiyay walaashay maxay ahaydeen murtida ama suugaanta ama asibahan u dhigay maansooyinka ama gabayada waxaan isku arkay 2017kii dhamaadkiisii hidaha dalada hidda uma lihin oo hidda fog bay soo galaysaa hidda uma lihin waa hibo ilaahay uu siiyay isagana markasta ugu shukriya aad ayaad ma hadsantahay ma jirtaa wax heeso oo runtii aad tirisay oo runtii la qaado hirgashay may walaalo hees wax la dhamaana sameeynin hortaad wali waxay ku egtahay ashraf oo murtida maxay ahayd maasooyinka gabayada runtii waxa abwaano badan oo waxaad arkaysaa aan heesaha iyo dhankooda aan eegin oo inta badan ku maqan maxay ahaydeen maasooyinka iyo murtida oo kale wixii horena waxaan runtii u lahayn waa qaybta maasada iyo gabayada ayaaba inta ugu badan ay dadkeenu runtii qaadi jireen heesaha waxa wax ka daba imid been oran karnaa marka kulli hidii hore un bad sii wadaa been oran karnaa abwaan ashrafo aad baad u mahadsantahay bal hadda maasada koowaad ee u haysa dadweynaha ee u soo bandhigaysaa talo maxay noqon kartaa maasada koowaad ee soo bandhigayo ama ugu horeysa aan rabo halkan inaan ka tiriyo magacayga waxa la raahdaa aabow adiga ay reebay ha marka qofkiiba aabihii in ka tirsanaya aabow adiga ay reebay maasadan aabow adiga ay reebay waxaan ka tiriyay wiil aan saaxiibanahay oo aad iigu dheer aan isleeyahay waa qofka saaxiibtinimada hadda la kuugu dhow wiilka aan saaxiibanahay baan maasada ka tiriyay kulli waa nin saaxiibkay si ma wax la dareemaya aad baad ma hadsantahay waashir mar labaad mar saddexaad ku soo dhawaan ku leenahay TV-ga caalamiga Soomaaliya TV dhammaan shaqaalaha Soomaaliya TV ku soo dhaweynayna aad baad ma hadsantahay maasadan aabo adiga i reebay runtii waalidka inta ugu badan kaliya waxa ay ku howleeyeen ama ay u daalayeen waa horumarinta ubadkooda weyn oran karnaa maxaad aabo walbana wuxuu jecel ilmihiisa hore u maro ma laga yaabaa in ay sababta maxay ahaydeen ku kaliftay ilmihiisa inuu inuu horu socodkiisa horumarkiisa kaliya diyaar u yahay kale waalidkaagu maxay ahayd markuu yahay waalid xil iska saaraya adiga maxay ahayd noloshaada masti ama waa qasab inuu markasta xil iska saaro maxay ahayd adiga noloshaada iyo heerkaaga wiilkan aabihiina noloshiisa iyo heerkiisaba xilba iska saaray laakiin wiilkan aabihii laga yaabaa noloshiisa inuu qaab ku reebay sidoo ku reebay iyo sidoo aabihii oo inta ka sheeganayaba kulay maasada laga dhex dugan doonaa aad ayaad ma hadsantay bal hadan dadweynaha ay nagu soo dhaweeyno maasadii aabo adiga ay reebay taasho wanaagsan ayaad ilaahay wayahay maasadan aabo adiga ay reebay waxay ka bilaabmaysaa miyaan kaligay rucleeyaa miyaan kaligay rajeeyaa guushana kaligay riyoodaa dadkii rixil aan wadaagno inaan garabkay ka raadsho oo aan rooniba ka waayo adaa igu ridayna aabo inaan raaxa aan ku seexan siduu roobigu da'aayo inaan dhaxan aan rabaaso oo uu rooguna gariiro adaa igu ridayna aabo inaan cadowgay rabaysto intuu rarankana isaaro inaan raalli kuna ahaado adaa igu ridayna aabo ratiga oon una adkaystee inaan farxad aan ka riiqo haddaan raganimo lahaana inaan raysamaal u rooro korinta reerkiiyo ciyaalka adaa igu ridayna aabo ruuxdayda inaan necbaysto inaan heerkuna riyoonin ilmana ay iga rashlayso fikirna aan raad wadaagno adaa igu ridayna aabo inaan murugun rafiiqno facayna inaanan raacin rajadu in ay idiido adaa igu ridayna aabo adaa ruun hooyadayna adaa riiqoo fogeeyey xumaanna adaa u raray inay ubadkeed ka roorto adaa baday aabbo waa run aabbow adaa ii rafaaday haddana adigaa i riday
ireebay adaa ireebay adaa rubadayda gooyey adaa ilintayda roorshay adaa raygayga dumiyey rabbow iga fura dhibaatadan adaan garab kaa rabaaye yaa raqiibu camalka ii wanaaji adaan risiq kaa sugaaye nin ragi waa kii ka reeya guuldarro roga ee ka guura samirka waa kii ragaadsha dadkii xooggaaga roogay iyana kuma roona maanta abaalkaas shalay u raartay wuxuu kuu dhalay rafaadkan aabbow kuu dhalay rafaadkan wakhtigu waa hadhkaa rawaxa xilliga la jiree rogmaya hadduu reynreyn ku bado waxaad ku dambayn raqiis waxaan ahay ruuxuu la jiro raxmaanka dunidani rakibay wixii xanuun igu ridiyo qadarka raalli baan ka ahay sunnihii rasuulkaan nootaa calayhi salaatu wasalaam raaxuu ii yahay cafisku salligu waa ii rumaan maansada aabbow adiga ay reebay halkaasaan iyadana kusoo afjarayaa runtii waa maase runtii qof kastaba taaban kartoo dhagaysanaya ayaan odhan karaa Ashrafo runtii aniga laftir ahaanteeda waa maase runtii saameyn igu yeelatay runtii beerkay xanuujisay kulley maxay ahayd kulley waayaha uu ka hadlay baa jira oo run waalid kulley haddana iimo iska iman kartaa ayaan odhan karnaa bal Ashrafo aynu kadnago ka imanaynaa maxay maasada aabbo sax bal maasada ku xigteed noogu tala gashay maasada aan ku xigtay ay noogu tala galay kollay maxaa hayday mood iskeer badan yahay maxaa dhibaatada ma garanaysaa marka dhibaato waalid kaaga timaada ahaata ma dhibaato jacayl kaaga timaada ahaatee dhibaatada waalidka kollay waalidku markasta maxaa hayday xushmad iyo karaamo u baahan yahay iyo dulqaad marka dulqaadka waalidkana in la badiyo waxaan lahay aad in loo badiyo waayo waalidku inagoo yar buu dulqaatay nolosheenu inagoo waxba ahayn ilaahay ka soo isaga ina soo koriyay isaga ina soo barbaariyay inuu dulqaatay saa oo inagu dulqaatay inaan ugu dulqaadano weeyaan maansada ku xigtay ee halkan aan rabo inaan ka tiriyo magaciiga waxa la yiraahdaa sow ani imu xulan ha marka maxaa ku xushay ma dib ma heed maxaa tiro naban kan waxa xushay libaaxba ma waa maxay waa isla arkayna aad baad u mahadsantahay waan Ashraf andakaagu soo wareey ayo walaalo adiga runtii maasooyin badan gabayo badan oo jacaylka horta way jiraan laakiin adiga wax gaar ku ama saxar xaalad aad kala kulantay jacaylka waayo hees maxay maasooyinka jacaylka saad u qortay waa dareen qofka maxay dareen wixii saad ka dareentay waa dib isaga soo martay waayo qofka wixii soo maray wixii kale isku sii ma baahin karo marka ma laga yaabaa adiga qodhaada inay ku soo ridatay oo muddo badan baan kula la daala dhacaysa xanuunka ha way jirtaa oo oran maayo diidi maayo sida awaanada qaar oran maayaan jacayl waan ka soo jeedaa oran maayo laakiin jacaylka waan soo marnay waan isa soo ogaanay laakiin imka waxa salaha jacaylka sunta baad ka saartayba maska marka sunka laga saaro ma ku cuni karaa imika waxaan isla soo rafaadnaba imka sunti baan ka saaray jacaylka imika waa isla rafaadnaba banoqon ha adiga madan walaalo inoogu tuur gabaygaas aad bulshada u soo bandhigayso maansada soo ani imu xulan inaan akhriyo unbaa fiican ma filaya soma maansada maxaa hayday soo ani imu xulan waa qiso dhaba oo aan ka sameeyay wiil aan saaxiib nahay qisadeeda baan ku dhex galaa waa caadi hore baan usoo marsanaynaa qisadeeda waxa ku dhacday maalin maalmaha ka mid anigoo jooga meelaha jigjiga lagu bunka laga cabo jigjiga badanka bunka ku yar badan ma filaya shaaxin kastoo shaaxna la isticmaalo laakiin meelaha bunkan aanu fadhiisan jiray meelaha bunka laga cabo anigoo fadhiya ayaa waxa dhacday aniga waxa tabaacad lahaa qofka igu dhow inaan afka la galo ama aan de la sheekaystaba marka wiil igu dhawaabaan la hadlay wiilkii igu dhawaa markaan la sheekaystay ama sheekadiisii aan dhugtay waxaan ka dareemay in dhibaato yar haysato markaan sii dhex galayna dhibaatadan jacaylka ayuu iga horamay inuu gabadh jeclaaday gabadhii waqti badan marka ay soo dhex martay maxaa hayday gabadhii markuu ka helay gabadhii lambarkeygii inuu helay gabadha lambarkeygii markuu helay inuu la hadlay gabadhii inay asxaab noqdeen hadhow gabadhii markay asxaab noqdeen inuu isku dayay inuu gabadha jacaylkiisa u sheegto uuna u soo bandhigay uuna u sheegtay gabadhina waxa tir walaal wiil kale ama qof kale ayuu naga dhaxayaa xiriid wiilkii wuxuu markay saa igu tiri in badan ma ku celceliyay gabadhii alxasan markii dambe way qancisay anigu qancii kuma joogin buuri laakiin gabadhii maalintii xilliga ahayd oo 2017 ku beegneyd bigoori ilaa imika inaan ilaawo waan isku kari waayay waxaan doonaa waan sameeyay marka maasad qisadii intaas ahayd
ما نسيب بابين وصوكوبي aad baad u mahadsan tahay runtii ashraf oo horta inta badan moogtahay dumarku iyo rag waxay ku kala duwan yihiin gabadhu wixii ay ku hayso ama waqti xaadirka qofkii ay dee maxay ahayd waqti ay siisay diyada u gaar ah markii qof kale wax soo bandhigto runtii ma qariso laakiin raggu inta badan waxay u badan yihiin baan aniga ahaan markaan isdhaahdo waxay u badan yihiin in iyagu ay maxay ahayd idhaahdaan oo kale iyagu qof kale ama meel kale oo wax u yaalaan haddana damac wax damac la idhaahdo وجرا ayaa rag ilaahay ku manaystay tamciya dacar in ragga kama dhamaato sida hore loo sheegay marka raggu mar walba sidaa ay gabadhu daacad u tahay oo la suuraan qof aan meel arrin la dhigto hawsha kuma jiro ya iyagu dee lagama yaabana idhaahdo ilaahay baa ku soo xirigeliyay bay kulli ku meel mari karaan bal adigu abwaan ashraf oo kulli nin baatay waxaad arrinka ka ogtad ka odhan kartaa arrinka waxaan ka odhan karaa walaashay horta wiilal badan waxaa jira gabadh inay la sheekaystaan haddana tukale in la sheekaystaan doonaya mahmahyo dumarka laga maqlan waxaa dhahdaa gabadhu kunbay shukaamisaa laakiin kow bay ka raacdaa taana way jirtaa dhankiina kugu soo qalloociya taana maxaad ka qabtaa adiguna waaran way jirtaa taas laakiin haddana gabadhu markuu dareen galo dhankay u badato bay iskugu biyo shubataa waan gartay oo kule shukaamista waa lagu jiraa dee intaa waxaan ku leeyahay beer baxday midda ugu bisin baa laga soo goostaa waan gartay marka qof walba indhaynta ku dhex jira laakiin last iyagu hal meel bay isku qabtaan aynu ka nimaadno xoogaaga kaftanka apple aynu dhaadhacna hadda maasadii adigoo bulshadu way ku sugaysaa kule in badan baa dhagaha taagaysaa bismillaahi raxmaani raxiim maasadan soo anigu muxulan waxaa ku bilaamaysaa xilligan ku arkayay quruxdaada xariirta xajiimooda xamdaay xalin waaye naftayda xoorlacaynta qudhaay xarbigii wadnahayga dhagahayga xadaayay markii aan yarxan sheegtay xarafkii lambarkaaga soo ma aanan xaqiijin haasaabo aan xulay cidla soo imuu xidhin indhahoo xiqlay iyo xujo soo imuu badin cilmi buu xabaalee sow ani imuu xulan isagoo xafsiiye soo xaashima noqon hurda waa xayaatee xagga waali uma badan xiin iyo gariir iyo xaajiyaab la maangelin cudurkii ku xooriya dawaa kaa xalaysee dawadii iyo xoortoo xero iima haysee inta uu ixaabsanin xorayntayda yaa garan waaye xaalkoo murugun xigtiistoo xiid noqday dhammaadoo xamdo sugay ilaa weli aan xabaal ka galayee xusoo qora dhibkaygo kuna xardha wargeysko xasuusaha taariikhaha kusoo xigta warkaygani xabad buu ganayaa jacaylkaan nagula xajin xubnaha ugu dilaya haddii aad xalkii helin galabxa xillaydhoo dhulka xamashu leeyahay xamda kuma arkoono xubu toorre ima sudhin xabadkayga dhiiguna si xareed ma diino xanuunkan dareemiyo xagaldaac maan dhicin xay baan ahaaye bukaan xiiqay maa noqon xabsi adag soomaan gelin gidaarkiisa lagu xardhay xamdi adi xasuustaa sow xaggii aan eegaba magacaagu kuma xusna maasadaana iyadana halkaasaan kaga baxayaa sow ani imu xulan runtii maasada haddii aynu ka nimaano adigoo maanta kolley qof walba muuqta intuu joogo ama waqti kale ha qaaday wuxuu ugu luuqeeyaa heesaaseed isku tihiin adiga hore heesa ma ugu luuqaysay heesaha horta dhegeysigooga maxay xaydhay iguma badnaa oo igu yaryahay dhegeysigoogu laakiin way iska jiraan heeso markaan dhegeysanay ama aan dhegeysan jiray ama aan jecelahay marmarna yar dhegeysto oo wixii runta inaan ka sheegaa fiican way jirtaa hadda bal adigoo dadweynaha ku daawanaya way qof walba kulli codkaagu xiiseynayaa mar haddii aad waxaan ku leeyahay martidii iyo gabayga gudbisay kulli in badan waxaad maxaad rabta kulli baa jirta anu aan kamid ahay oo la talomo hal heesa noogu yaro tuuraban ku kala baxnaa marka kulli bal heesta aad jeceshahay rabto inaad la wadaagto aniga iyo daawadayaashaba ashrafo waan kaaga fadhinahay isbadbaadi waayahay heesta aan jecelahay inaan ku yar loonqeeyo waa heesa u qaado عتفتح يروي لا عتفتح حمد أو فن كان كفريستي تعبرنا ذلك أي بدن كم قدر هاي مركب حيلة هاي إني هاي مغوشة ما هي جان سيدي مانكي قاد ما حنكو بمسالة مقدر شكدن ما حنكو بمسالة مقدر شكدن درن كده معان nuurkeeda macaan maan seegin anigu ye marinkeed ma haysaa marka iyadan intaas aad baad u mahadsantahay maasha Allah codka Allah ku barakeeyo ayaan ku leenahay abwan ashraf aad baad u mahadsantahay kusoo dhow mar labaad mar saddexaad baan ku leenahay TV-ga Sumnews TV bal haddana maasada kale ee xigta aynu soo qabno quraadin qadar heesa kulli dadkii ku raadinayay way maxaa baan dhimalaha wadi qarnaysaa ya may kuma qaranayay waa ku qarnayay way
bal hadda aynu dhanka u dhaqaaqno aan ugu laabano maasada hadda gacanta ugu hayso dadweynaha. maasada aan gacanta dadweynaha ugu hayo horta hooyo marka la yiraahdo aniga meel bay xanuunta dhammaantiinba hooyo qiimihiisa hooyo magaca hooyo qiimihiisa lama koobi karo waa run horta abaan sharafo wada hooyo runtii waa laf dhabarta nolosha rabbi inoo daayo intii dhimatan Allah u naxariisto amiin amiin runtii hooyo waa lagama maarmaan haddii maase iyo gabayo geerar wax kasta la isu keenana wax lagu soo koobayaa runtii ma jirto hooyo xuquuqdeedana cid gudi kartaa ma jirto marka runtii maasada hooyo aniga u dheeda runtii waan jeclahay bal haynu haddana dadweynaha aynu sii daynay maasada magaceega waxa la dhahaa hayin weeye hooyadu hayin weeye hooyadu maasadan waxay ku bilaabmaysaa waqti dheeli kuma bado dhaawac halis kuma tuso abidku kuma dhiirado inuu daraara kugu dhibo farxadaad ku dhaarato hooyo noloshu waa dhibic iyo midhi dhacaaye dhabarkaad isaartay rabbi dhaxanta ha ka dado oo naarta kana dhowr janno kuguna dheelmi dhinac adiga kaana yeel khadiijiyo dhashii nabi calayhi salaatu wasalaam waxaan weligeyna dhaafayn niyadda aad uga dhammaanayn qalbiga oo kala dhantaalayn dhabtaad igu korisay hooyo kolkaad dhaxan iga diraysay kolkaad dhooniga i siisay adoo dhandhamin baraashin hurdada dhaaxaan ku gaadhay anoo dhadhabaayo hooyo horaadkaagaad igu dhabsiisay caanaha dhaydee macaan horaadkaagaad igu dhabsiisay caanaha dhaydee macaan korkaan dhowr sanana gaadhay ayaad socod ii dhigaysay dhawaaqa hadalkeena Soomaal ayaa toos igu dhibtay macallin waxaad tahay dulqaad dhan ducana ruuxaad u dhoobto ma dhaco hooyo dhankiisu guushuna dhinac ugama baydho geesiga dhicin ee adkaysta idinkaa dhabarka saaray nabiga inagaa dhalay calayhi salaatu wasalaam ka dhama jannadoo biyaha ku dhaadhaca beera ay asxaabtii dhooqayaan ma dhammayn karaayo intaa dheel ii martood aniga dhaxan ii fadhiday aniga i dhalaalisood aniga ii dhigtay asluub hooyay ilin baan dhibdhiyey kolkaan dib u dhaartay goortaad aniga ii diiday dhumad aniga ii diiday dheeli abaalkaa lama dhaweeyo dhammayn maaha hadda daweynba abaalkaa lama dhaweeyo haddaa dhami adi adduunka korkaaga lagu dherasho hooyo qalbiga adigaa ku dhisay jacaylkaaga anoo dhallaana adaa shumis igu dhabsiiyey dhegtana iigu riday aabbo maasadan halkaasaan kaga baxayaa aad baad u mahadsan tahay hawaan ashraf runtii maasadan waa maasa kule dareen gelisaaniga qudhayda hooyan runtii waa lagama maarmaan taariikhdu qarmayso aad baad u mahadsan tahay walaal adigaa mudan bal hadda maasada xigta waqtiga nagu kooban dartii haye maasada inagu xigta waxaa la dhahdaa qabyaaladi waa qori daba markaa qabyaaladan kaga hadlay waa si fiican abaan ashraf runtii waxaad moodaa maalmahan dambe inay maxay guud ahaan Soomaalida meel kastoo degdegayga ay kala degan yihiin inay aad ugu soo badanayso maxay ahayd qabyaaladii iyo qadiyaduba aad moodaa alla dadkeena ka saaro walaalaha amiin markaa kulay dhiirigelin qabyaalada kaalada dadkoo dhan baa u baahan bal hadda dadweynaha iyo annaga waanu kula wadaagnay haye walaalo maasadan waxaa la dhahaa qabyaalada qori daba maasadan waxaan ku canaananayaa Soomaalida ama waxaan ka hadlayaa qaabka ay qabyaaladu adeegsadeen adiga maasada ka dhex dhugan doona waxay leedahay qori dabo balqiiqaya qabsatayo ku gubatay qabyaaladu waa sidoo kale waxay qoonto mooyee waxba may qaweyno wax loo qira kamay dhigin haddaan qeexo eriyadan qabyaaladu waa qarnuun daran qodaxo xajiin ba'an qabqab iyo dhibaataya qaxar bay horseedaa qamuunyo xanuun iyo colaad bay qalqaashaa anaa quman oo laandheera ah qabiilkaagu waa kuma ayaa lagu qureecdaa maxaan ka qabownaa qardhaas miyaan u dhiganaa nafta qiil u raadiya ka quman halkay taal intuu qale walaalkii ayuu qosol dhacayaa markaasoo qirayaa inuu qabtay cadaawiyin inqilaado shisheeya qac ku sii balwaayaha waxay wada qodayaan qabri wada dhigayaan guri wada ridayaan xil baa lagu qarwaayaa anaa qaban hogaankiyo anaa qaba ammaantii dhulkan qayb anaa loo anaa qodani oo raran ayaa la isku qalayaa haddada kii qabyaalad waxa qabyaalad maxaa keenay waa qabyaalada kursi iyo dhul labada unbaa qabyaalada lalin kara ama la isku haystaa dhulkan qayb anaa loo anaa qodani oo raran ayaa la isku qalayaa qaran xaaba muuno qaaca baxaya qarmuunkiisu daran yahay haddaad malab u qaadato ugu qayba hagaagin tallaahi qaran baanan toosin qaaca baxaya qarmuunkiisu daran yahay haddaad malab u qaadato ugu qayba hagaagin bilaahi qaran baanan toosin qabyaalad deer miyay noqon qarmuun udgoon miyay noqon qaniya dhunkasho miyay noqon waxa aan la qalalay qeyladeedii yeedhiyey waa xanuunka noqoomee dul qiyaamo naga dhigay
dunidii ku qaata halkaasaan iyadana ka baxayaa maansada qabyaalidoo qoridaba inkastoon ku yar hakaday abwaan shaakir oo maasada runtii waa maas wax lagu qaadan karo runtii qabyaaladu dadkeena runtii saameyn badan bay ku yeelatay runtii dhibaatada ugu badan imikeena haysta Soomaali haddii bahayna waa qabyaalad been oran karnaa guud ahaan meel kasta ka guureysa kulli maasada in badan inay wax ku qaadatay insha Allah waan rajeynayaa aad baad u mahadsantahay runtii Allana ku barakeeyo ayaan ku leeyahay murtidii iyo maskaxda Rabbi ku siiyay bal hadda wax maas oo kale kulli inoo haray ma jiro saaflay kulli intaan ugu tala galay TV-ga intaas inagu kooban yihiin ma sha Allah aad baad u mahadsantahay bal hadda bas xogaa yar su'aalaha aan ku weydiiyo abaan Ashraf diyaar baan ku ahay waqtiga dhalatay waa naga bulshada inuu sheegay aniga waqtigan dhashay waxa ahayd ku 998 waxaana ku dhashay maxaa ahayd mii kamid miyada Itoobiya miiga hadan kula wadaago dad daawanaya waxa ogaadaan gaarag ma talada af Soomaali kulli uu ka dhariya saaflayo laakiin dhulka Soomaali degtay weeyaan waxa la yiri markaan si baaray waa dhul ormadu ay degi jirtay gaarag ma ta wax saas ay ugu bixiyeen bal yiri marka waqtigaasaan dhashay tuuladana waan ku dhashay miyiga waan ku dhashay tuulo waxaan uga soo gudbay la faciise inaad maqashay ma aqaane tuuladaasaan in badan ku koray ilaa lixaad galaaskayga ka dhigtay tuulo kale oo sheedar la raabaan uga soo gudbay dadka garanayaan dadka kalena imika maqlaan tuuladaas markaan in badan joogay markii dambe tuulada markaan ka gudbay jigjigaan u gudbay iyo Hargeysa ayaan waqti badan joogay hadda jigjiga ayuu ku sugan tahay walaalo nooga timid aad baad u mahadsantahay runtii martii cusbaata waan ku soo dhaweynaa maadaama safarka inta laga noo soo gashay aad baad u mahadsantahay abwaan Sharaf walaalo iniga badan abwaan Sharaf waxa ku weydiin la ma jiraan adiga runtii kulli qofka haddii uu socdaal galo ama uu safar galo kulli indhiisa wax badan oo runtii aan hore u arkin buu la kulmayaa la yaab ha noqoto farxad ha noqoto waxyaabo kala duwan bal adiga intii aad socotay iyo intii aad wadan martay wax runtii kugu la yaab badna oo oran karto malaha taas tulamid ku soo marimayso oo annaga dadweynaha la sheekanaysa ma jiraan wax aan ka yaabay aniga Ashraf ahaan walaashay hadan ku waxaan ka yaabay ma soo marin wali widi ma yaan malaya laakiin wax aan la yaabay oo maskaxdayda nugayga iga diga ama maskaxda qaybta labaanka iga diga oo aan la yaabay ma jiradii kulli shayga la yaabtay meel weyn buu ka digaya marka wax aan la yaabay oo igu weyn wallahi ma garanay walaashay waan gartay daawadayaasheeda qiimaha iyo qadarinta mudan oo intaa waxaa noogu eega barnaamijka xiisaha badnaa ee fanka iyo suugaanta oo maanta marti noogu ahaa abwaan Sharaf waxaa idiin soo gudbinaysaa anigoo Bishaara Cabdi Jaamac ila janno barnaamijka intaynu kulmi doono waxaa idinkaga tegaynaa sidaa iyo kulanti dambe oo xiiso leh